الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة waxaan labadii jimco hore ka soo hadlaynay wararka beenta ee la abuurayo ee la baahinayo ee qof walba ka qayb qaadanayo qof hadal kaga qayb qaata iyo qof qoraal iyo clip iyo comment kaga qayb qaata iyo qof sii share gareeya social media erayada caanka ka noqday hadda arrimahaasi khatarta ay mujtamaca iyo ummadda u leeyihiin iyo dembiga ay leeyihiin iyo had iyo goor sida wanaagga loogula dagaalamo dacaayad iyo been in laga fidiyo waxaan ballan qaadnay jumcadan inaan wax ka tilmaami doono qaybo ka mid ah sida islaamku uu looga hortaga uu jideeyay looga hortagay dadka muslimkaana in lagu tarbiyeeyo ilaaliyaan looga baahan yahay waqtiguna waa kooban yahay waxa la cilaajinaya laga hadlayana wax weyn oo dhib badan waaye waxaan la wada gaari karin lagama wada tago saddex qaybood baan u qaybin karaa sida nusuusta shariicadu uga hadashay si kooban qayb nusuusta shariicadii waxay ka hadashay in dadka looga diga waxan inuu dembi weyn yahay in cadaab aakhiri adduunba lagu mudanayo in ilaahay looga fogaanayo in lacnadii ku dhacaysa qofka waxaa ka shaqeeya dhex gala qofka muslimkee iimaanka leh ilaahay ka baqayee aakharana rumaysan in badan baa siyaabo kala duwan loo xasuusiyey waxaanay dembi aan la isu cafiyi doonin inuu yahay adduun iyo aakharabana la iska goyn doono dhinaca kalena akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo ay tahay qiimo jab iyo ay tahay qofkii oo qiimo beela mar labaadna waxaa laga hadlay leen waxaanay akhbaartu way kuu iman waad akhrin waad daawan waad maqli waxa ay habboon tahay qofka muslimkii inuu sameeyana ee seed yeeli lahaydna tilmaan baa laga bixiyey qofkii digniinta anfici weydo tilmaanta idaabta wanaagsan ee la siiyeyna raaci waayana cuquubada iyo tallaabada laga qaadi lahaa iyo ciqaabka uu mudan karayana waa la sheego waxbaa laga tilmaamay ee laga doonaya ciddii hoggaan iyo xil haysaay uu mudan yahay inay tallaabooyinkaa ka qaadaan qaybta hore digniintu si guud ahaan dadka warkaa fidinaya ee sii dhexgelaya oo ummadda ku sii baahinaya iyo kuwa abuuraya ee samaynayaba ilaahay adduun iyo aakharaba cadaab inugu talagalay buu sheegay ina aladiina yuxibbuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu dadka mu'miniinta hadalladaa iyo dacaayadda iyo ceebtaa iyo xumahaas inay faafaan dadka doonaya lahum cadaabun aliimun fi اddunya wاlaakhira aakhariya adduunba cadaab xanuujiyo kulul bay ku leeyihiin ilaahayna waa og yahay idinku haddaydaan ogeyn oo ilahay wax ka qarsoon ma laha haddaad dhihi lahayd magac beenaad wadataa oo social media ku soo gashaa kiliibkaaga iyo commentigaaga cidi kuma taqaana wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay waa ku og yahay waa kula xisaabtami doonaa dadka sharaftooda gaar ahaan qofkii wax ka sheegana ilaahay suuratu nuur wuxuu ku yidhi ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almuuminaati dadkaa sharaftooda wax ka sheegaya raggiina waa la mide lucinuu fi اdunya wاlaakhira aakhariya adduunba waa la lacnaday naxariista allah laga dhaariyoo laga fogeeyey walahum cadaabun cadiim cadaab weynna waa leeyihiinoo waa sugaya qofka mu'minkaee aakhara rumaysan cadaab ilaahayna ka baqayaay intaas inay hakisaa loo baahan yahay dhinac kalea laynaga tusayoo waxaa la yidhi waxaad samaynaysoo dhan waa lagu qorayaa ereygaaguna waa qoran yahay falkaad samaysana waa qoran yahay diiwaankana qiyaamadaa lagu soo hordhigiyo waa lagula xisaabtami wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun kiligtaadii waa la qorayaa commentigaadiina waa la qorayaa sheergarayntaadiina waa la qorayaa haddaa wax boostigaraysana waa la qorayaa markaa sheekaysa waa la qorayaa marka adigu wax qorteed samaysaa liftana waa la qorayaa bilaash looma qoraye qiyaamadaa lagu horkeeniyo janniya naar lagugula xisaabtami
waalaakhirati cadaabkii la sheegayey aakhiro xisaabtanaa ka horraysa oo lagu horkeeni mar waxaa layna yidhi waxani waa xan iyo been abuurad xantuna walaalka oo noolod hilibkiisa cunaysay la mid tahay walaalka oo dhintay oo hilibkiisii intaad miiska ku jarjaratay qadada dul saaratay la mid tahay arrinta hadday idinla foolxun tahay warkanaad ka sheegaysaanna waa sidaas oo kale nabiguna wuxuu yidhi walaalkaa wuxuusan rabin oo dhibaya inaad ka sheegtaay waa xan haddayba runtahay ka warran baa la yidhi hadday run tahay wuxuu yidhi waa xan hadday been tahayna xanta waa ka weyntahoo been abuurad iyo buhtaan waa dunuubta kabaa'irta waaweyn wey haddayba sababto isagiiyo dad kale inay isku xumaadaanna namiime iyo isku dirdir weeyo laa yadkhulu ljannata qataatun diradiraa jannada ma galuu yidhi nabigu sal ly slam intaasoo dhan waxaa layna tusaalaynayaa in laynooga diga waxani cuquubada iyo cadaabka aakhariyo adduunba ay mudan tahay iyo dembiga weynay alla agtiisa ka tahay iimaanka iyo damiirka muuminkii inuu dareenkiisa kiciyoo la taabsiiyo laguna cabsigeliyo loo sheego waxa ay gaadhsiin kartay aakhariyo adduunba markii taa lagaaga digay warkii waad maqli wuu ku soo gaari waxbaa dhegtaada ku soo dhici qoraal buu kugu soo mari waxbay ishaadu daawana ma akhrin maxaan sameeyaa markaan warka maqlo dhowr arrimood baa laynoo tilmaamay inaad samayso marka koowaad waxaa la yidhi dadka muslimkaa wararka ku saabsan marka u horraysa waa inay kuu soo degdegtaa qofkan muslimka waxan inuu beenya kow inaad marka hore kuu soo degdegto waxani inuu been yahay qofka muslimka ana la nabayo ama shakhsi caadiya ha noqdo ama qabiil ha noqdo ama qowmiyaad ha noqdaan qisadii ifkiga ee been abuurka caaisha laga sameeyey saxaabada qaybo ka mida golayaashoodu markay ku haasaaween ilaahay baa canaantoo yidhi lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayran wa qaaluu haadaa ifkun mubiin weli maanay waraysan weli warna maanay dabagelin laakiin waxaa la yidhi marka u horraysaad maqashaan ee warku idinku soo duurayba dadka mu'minka ama muslimiinta wanaag iyo khayr ka fishaan oo aad tidhaahdaan war waxani waa been war waxani wax fiican maaha war waxani wax wanaagsan maaha war waxan waa been ee warkan joojiya maad dhahdaan maxaabaad u sii gudbinaysaan oo u sii wadaysaan haddii hasaawihii iyo sheekadii la yidhi adu maxaad u sii sheergarayn adi maxaad u sii commenti garayn kuwaa soo geliyey adu maxaad qolo kale oola sii wadaagi maa dhahdi danna almu'minuuna bianfusihim khayran wa qaaluu haadaa ifkun mubiin maa dhahdid lowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakallama bihada waxaa annagu afka ma soo marin karno ma fidin karno ma sheegi karno waxaana laga maqli kara ceeb weeye xadgudub weeye muslim waxaa kuma habboona maad dhahdaan halkaasaa lagaa rabaa marka koowaad inaa istaagto marka labaad inaad iska hubsataa lagaa rabaa warka waraan la hubin waa been soomaaliduna waxay yidhahdaan beeni waa waraan la hubsan ama loo fiirsan waan u maleeyey iyaakum wadanna fa ina adanna akdabu alxadiid beenta malaha iska ilaaliyo nebigu maluhu been la sheega kan ugu badan iyo meelaha ugu badan ee beeni kaa soo gasho waan moodaye waan u maleeyey waay warkan ninka keenay sharciga faasiq buu xukuman yahay faasiq warkiina war kalaa lagu sugaaye wax laguma dhiso yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu war iska caddaystoo hubsada war markuu ardaala idiin keeno kuwaan laba aqoonin baa soo dhigi waa la kala boodaynaa maxaa dhacaya marka haddii aan warkii la kala boodnoon la hubsanin an tusiibuu qowman bijahaala dad iyo ummad baad ogaan la'aan wax u geysanaysaan oo jaa'ifaynaysaan aad sharaftoodii wax ka sheegaysaan aad diintoodii wax ka sheegaysaan aad qoysaskoodii duminaysaan idinkoon warkii hubsanin waxaadan war u haynin oodan ogayn oodan meel la ku sheegi karin baad wax meel kaga dhici fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waxaad samayseen baad ka shallaayi doontaan aakharana xisaab markuu yimaado waad shallaayi adduunkana beenaad fidiso ummaddii dhib u geysatee markaad aragto waad shallaayi
maxaa kugu wata shallaytada aakhariya adduunba ah iyo xog la'aan inaad ummad muslina waxyeesha diintoodii iyo qoyskoodii iyo cirdigooda maad iskaba hubsatid afkan fudud iyo gacanta fudud maa ilaalisid dhegta iyo afkan isu furan ee dhegta wixii ku soo dhacaba afka sii marayo iyo ishan iyo gacanta isu furan ee waxay aragtaba sii qojaynaysa sii keli garaynaysa ma xakamaysi gacantan iyo afkan xakamaysid ma waxubsatid oo u kaadisid saxaabadiina waxaa lagu yidhi fii suurati nur qisati lafki lowlaa jaaءuu calayhi biarbacati shuhadaa 4 markhaati may keenaan oo caddaynaya faida lam ya'tuu bishuhadaa markhaatiyada 4 hadday keeni waayaan faulaa'ika cinda allaahi hum اlkaadibuun alla agtiisa beenaalayaal baa looga aqoonsan yahay adi maa run logu aqoonsan marka anuu runtaan u malaynayay waxaas maa been noqon kara kaa saari maysa akhriya adduuntoona qof muslimaad tahay muxaasabaa kugu socota saa darteed waxaa la rabaa warka iska hubso waa arrinta labaad ee lagaa doonayo arrinta saddexaad ee lagaa doonayo haddaynan adiga ku khusaynin ama mas-uuliyaddaadii aynan ahayn cidday khusaysay gaarsii adna gaabso war kastoo jirana lama fidiyo waxaa jira fidintiisu ay ka dhib badan tahay dhicistiisa wax foolxunoo hal meel ka dhacay in suuqoo dhan la geliya dhiirigelin waayo warka qaarkii in la fidiyo kuma habboono ummadda khalkhal gelinaya ummad la rabay inay wax iska ilaalisa inay isdhigata war beenana in la faafiya lama ogola hadday jiraan dad uu khuseeyana gaarsii haddayba gacanta ku hayaanna hubsashada iyo dabagalka iyo qiimaynta iyo maxaa laga sameeyaa dadkeeda mudan u daa markii mushkiladdu waxay timid wax walba qof walba ha farafareeyo la yidhaahdo oon xuduud la kala lahayn oo hawshan dad bay u taallaa aan la lahayn oo yaa qaban kara aynan jirin qof walbana kii doqonka haya kii caqli gaabnaaya iyo kii aan waxba garanayninna wax walba inuu farafareeyo ka hadloo wax ka yidhaahda ay noqotay waidaa jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih hadduu war u yimaado cabsi abuuraya ama nabad abuuraya warkiibay durba suuqa la ordayaan oo la kala yaacayaan walow radduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lamri minhum hadday warka u celin lahaayeen u dayn lahaayeen nabigoo hoggaankii ummadda ahaa iyo dadka xilka hayee hawshan ku shaqa leh saasay ku fiicnaan lahayd kadib warkii la qiimeeyo la xaqiijiyo maxaa laga sameeyaa see loo daweeyaa la yidhaahdo laakiin figix suuqa in lagula kala yidhaahda ha yeelinaa layna baray intaana waa aadaabta layna baray inta ilaahay ka cabsi ay anfici weydo aadaabtana u muuqan weydo sharcigu hoggaanka iyo maamulka ummadda dantooda ciddii ka talinaysa in la ciqaabo oo la xirxiro oo la ganaaxo oo la garaaco oo qaarkood la laayo buu sharcigu oggolaaday si guud hadday tahayna si guud bay xaqa maamulka iska leh si gaara hadday tahayna dalbashada dadkii loo geystay baa iska leh tan gaarkii xaddulqadafkaa tusaale aan u soo qaadanno waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa 4 markhaati keeni waaye ilaahay agtooda beenalayaasha qoraa maxaa lagu sameeye la yidhi 80 shaabuug hortaa lagu dhuftaa la yidhi waa garaaci weligii dambana irbad markhaati laga dhegaysan maayo waa beenlow ardaal ah oon waxba goynin waayo warkiisu irbad ma gooyo wuxuu xukuman yahay faasiq inuu yahay faasiq axkaam badan baa ka dhalan haddaa shaaficiye soomaalidu tahay gabadhiisa walaayadeeda ma qaado walaashiina walaayadeeda ma laha faasiqu wilaayo ma laha hadduu xil ummadeed hayana waa in laga xayuubiyo oo laga qaadaa dad salaad inuu tukiyo ma aha waa ardaal qashin quba waaye wa ulaa'ika hum ulfaasiquun axkaamtii fisqiga ka dhalanaysay calaa ikhtilaafi almadaahibi baa lagu dabaqi waa cuquubadiisii adduunka tii aakhirana waa sugaysa haddii uu yahay si xaqa guud iyo dacaayadda guud iyo ummadda argaxgelinta guud wax ka shaqaynaya hadduu yahayna munaafiqiin baa xilligii nabiga ku dhex jiray dadka maalin walba war bay soo dhigi jireen beena maalin walba war bay dadka la dhex ordi jireen kuwii baa digniin la siiyey ilahi wuxuu yidhi in lam yantahi almunaafiquuna munaafiqiintu haddaynan joojin waaladiina fii quluubihim maradun
kuwa qalbiga ka jiranaya dadka ku dhex jira waalmurjifuuna fi lmadiina kuwa warka magaalada la dhaxordee dadka kolbabajiye warka la wareega haddaynan joojin orodkaa iyo warwareeggaa iyo dacaayaddaa iyo nuunuudaas lanuqriyannaka bihim waan kugu diraynaa kugu fasaxaynaa maxaad ku samayn marka uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliilan wax yar mooyeen magaalada sii deganaan maayaan nin la masaafuriyo nin meel laga tuuro nin xabsi la geeyo waayo malcuuniina aynamaa uqifuu malcuuniin waa la lacnaday dadkaasi aynamaa uqifuu ukhiduu waqutiluu meeshii lagu arkaba waa la qabqaban waa la layn waqutiluu taqtiilan sunnat allaahi fi aladiina khalow min qablu ummadihii idinka horreeyey sharciguu rabbi ku soo jideeye lagu maamulay saasuu ahaa walan tajida lisunnati illaahi tabdiilan mana la bedelayo ninkii intaa la kari waayo nin walba waxa uu fidinaya iyo inta loo digay iyo aayaddu waxayna bartay digniin baa la siin marka hore aayaddan waa loo digay waa loo hanjabay cidday anfici weydayna tallaabo ku habboon kii la dili iyo kii la xiri iyo kii la garaaci iyo kii la tacsiiri iyo kii la masaafurin baa laga qaaday waayo waa marad ummadda duminaya oo kala dilaya waay qoyska duminaya dhaqaalaha duminaya sharafta duminaya diinta duminaya wax walba baabiinaya akhlaaq lumaysa way sidaasaa si kooban ay shareecadeennu hallo u daweysay marna damiirka iyo iimaanka lala hadlo marna dariiqa habbooneed samayn lahayd lagu tuso marna intaa mirkii diidaayey dowladdii saxani inay tallaabo ka qaaddoy edab u yeesho ay af ka wada jebiso oy kala cayriso ay cashir u dhigto loogu jideeye khatarta ay leedahay darteed cadaab adduun iyo aakhiro labadaba sidaasaa laynoogu sheegay ilaahi subxana wa tacala arrinta aan iska dayno gacanta fudud aan iska dayno warka beenta aan fidinayna aan ka dayno maalin kasta haddii aad saacad baraha bulshada fiirisaay ugu yaraan 50 war oo been abuur iyo dacayada ku soo mari markaa u yarta midba midkuu ka sii foolxun yahay buu ka sii commenti badan yahay oo sii faafin badan yahay oo dad in ka badan sii gaarayaa war ilaahay aan ka yaabno war gacmaheenna aan xakamayno war sharafteenna aan ilaalino war ilaahay aan ka baqno war aakhariya duma waa la isxisaabinayaa innagu dadkeenna iyo ummaddeenna iyo mujtamaceenna iyo diinteenna yaynaan gacmaheenna ku duminin innagii baa guryo inaan waddan dhisantaan rabnaa faasas baanaan la dhacaynaa qoyskii baa la jarjarayaa oo dhaqaalihii baa la jarjarayaa oo diintii baa la jarjarayaa oo sharaftii baa la jarjarayaa oo magac iyo maal baa lagu raadinayaa haddana ummad inay wax noqotaa la rabaa waxaa la yidhi ruqa ninkii lahaa saynta kaga taagan yahay ma kacdo anneef caatoo in la kiciyo la rabay ninkii hadduu saynta kaga istaaga ma kacdo war ummaddan wax noqon lahay innagii baa saynta kaga wada taagan war ilaahay aan ka baqno اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة